السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن السلام أصحابتا إن مالكستو جوجتين igu xiran waxa weeyaan arrinaan inaba caadi ahayn maamo Safiyo oo xabsigii ku noqotay waxa weeyaan maamo Safiyo oo xabsigii ku noqotay xabsigii lagu celiyay waxa weeyaan ما شاء الله تبارك الله إلهي waxaan ka baryeynaa in qabiilka Ilaahay naga kor qaado Ilaahay qurbo joogta dadka qurbada ku nool oo bariiskooda cunay baasadooda cunay ama wax ay ka naxayaan jirinin oo waxa weeyaan wadankii wax ay kala socdaan dadka ku nool aysan jirinin haddana ina anagii oo qurbo joogo oo banaanka joogno ina qabiil maxaa la dhahaa aan ka bixi weyno oo qabiil anagii aan isku fiirino oo qabiil aan ka hadalno meeshaan umada ka wacyigelin lahayn oo umada waxasan uga sheegi lahayn oo qabiilku wuxuu yahay aan tusi lahayn sababtoo anaguba qurbaan joognaa dad wadankoodii dhistay oo hagaagsaday oo qabiil ku nooleen ayaan la joognaa dadku ayagu waxay ka yimaadeen waa qoomiyado isku tegay oo is arursaday wadamada aan joogno dadka u dhashay 100 qowmiyad bay leeyihiin dad waxa weeyaan united noqday iskaashaday isku tagay is arursaday oo hal meel ka soo wada jeestay oo hal mabda' leh soo waxa garatay maaha community-yaal bay leeyihiin waxa dad oo u dooday leeyihiin dad xuquuqdooda ilaaliyay leeyihiin wax walba leeyihiin soo waxa garatay maaha qabiilka anaga waxa weeyaan waan isku in la isku aqoonsado ma ahan in la isku aaneeyo ma ahan in la isku aaneeyo ma ahan in la isku aflagaadeeyo ma ahan dadka qurbo joogta waa inay dadka qabiilka ka wacyigeliyaan maanta dadka qurbo joogta waxa dhaama dadkii ku noolaa outside-ka I mean inside of their country ayaa dhaama dadka ku nool wadankii ayaa xaqiiqdii dhaama dadka maanta qurbo joogta dadkaas qabiilkii wuu soo daal way ka daaleen wuu soo daalsaday way naceen sababtoo maalin kasta mid qabqablaa ayaa wadankii qasaya mid nin lacag ka soo qaatay isagoo kaleeta ayaa wadankii qasaya nin aan waxba dheerayn hoos taagan ayaa wadankii qaldaya marka midii qurbaha joogtay nimankaasay la safan tahay waxa weeyaan qabiilkii nin aan wax ku taraynin qabiilkiisa muxuu ku tarayaa hadaan qabiil ugu doodo qof muxuu tarayaa waa inaan dadka ka wacyigelinaa waa inaan u sheegnaa waxa qabiilku yahay qurbaan joognaa maalin kasta abuse baan la ku hayaa maalin kasta waxa weeyaan discrimination baan la ku hayaa maalin kasta ciyaalkayga baa la caaya annagii baan la caaya hoos baan loo fiiriyaa who are you anyway to inaad qof qabiil aad ku judge garaysid inaad qabiil qof ku fiirisid adigoo kala gabar walaashaay oo xitaa aad hayb ku reeto wadaagtiin ina maanta xabsi ku celiso xaraam caleeg xawayaan maama Safiyo gabadhii xabsiga ka soo dameynatay ayaa xabsigii ku celisay waxay ugu celisay qabiil awgiis waxay ugu celisay maalin maamadaasi ay hadashay ayay ugu celisay xabsiga oo ay amaantay maxaa la yiraahdaa farmaajo anaga dhanba amaanay farmaajo miyaanu ku qabiilnaha farmaajo ku qabiil ma nihin hayb ma wadaagno galayagu isku meel ma daaqo soo waxa garata ma aha waxaan ku amaanaa inuu wadankii macnaha u dadaalahayo nad inuuna gadanahayo dadkaygu waa tabaalaysan waa dhibaataysan meel kastay daadsan yihiin annagaa ka mid oo duurka joogna soo waxa garata ma aha marka dadku waa iskhilaafaan carab iyo ilkaa dadka isugu dhow waa iskhilaafaan hooyo 12 cunug dhashay oo ciyaalkeedii laga qaatay oo inta xabsi ku dhashay ilmihii ay xabsiga ku dhashay laga qaatay xaraam caleeg xabiibti inaad saas u fiirisay ahayd qabiilku kuma galayo dhinac kuma galayo cadaabka ma celinayo janno ka ma celinayo wax uu kugu siyaadinayo malahan soo waxa garata maaha marka maanta maamada xabsi bay ku noqotay dadka dhahay 30 sano iyo waxaas tax kama jiraan qofka wali lama xukumin
xabsiga wuxuu noqonaya allahu aclam ma biluu noqonaya ma sanaduu noqonaya ma beryuu noqonaya horta in laga soo damiinto weeye waa loo ordaya dadka u ordayana waxaa kamida ummad aada iyo aada tiro badan ayaa u ordeysa oo lacagaa loo aruurinaya oo hadda ciyaalkeedii qaar kamida gabadheeda weyn gabar ay dhashay oo maasha allah wanaagsan oo fiican ayaa haysa 4 baan u maleynayaa 4 ilmood excuse me guys no allergy u kacsan marka waxa weeyaan dadkani maalmadani maalin ay dad wax ka sheegtay ayaa waxa weeyaan xabsiga loogu celiyay haddana dadkii xabsiga ku celinayay ayadii waaba isku hayb oo dad kala dheer ma aha war mucjisada taagan fiiri dad kala dheer ma ahan waa isku hayb hamadani farmaajo ku hayb ma ahan waxna uma gelinin xataa isku qabiil korona ma aha marka midta xabsiga ku celisay unbay isleeyihiin marka waxa weeyaan soomaaliya hala isku naxariisto haddii waxa weeyaan hawiyada roodir kulli jareer weyn everybody digriya mirable kul waa la iswada dhalay waa la isla dhashay soo waxaa garata maaha isku degaanaan leeyahay maybe hala kala degaansanaado hala kala babaxsanaado laakiin soomaali waa isku soomaali cadow inaan isku jabino maaha annagiyo nala arki karin annagiyo skinkayagii maalin kasta nala ku caayahay waxaama madow oo dharkaan saan u xiran intay ka yimaadeen nala leeyahay ya annagoo ba iyo ta xaggooda ka ahayn annagii inaan isbaahdilno annagii inaan xabsi isku celcelino annagii inaan caruurtayadiioo dayacno meel kasta taallo oo dhibaateysan daroogadii cabahaya wax walba lagu sameynayo xabsiyadii ku uray maanta maamooyinkii caruuraha lahaa inaan u dadaalno weeyaan macnaha wey hadalkan ku dheeraaday dabcasarna ma doonayo inaanba kusii dheeraado sababta anigaaba ishuugan kusii dheeraaday walaalayaal waan isgargaarno oon isgacan qabano oon isku dadaalno oo dadka qurba joogta ilaahay laga cabsado qabiilka dadka wado oo qurunka wado oo balaayada wado waa annaga dadka qurba joogta oon isku naxariisane yaa la isku naxariisto yiri waxa weeyaan saan u kala daadsanahay saan u kala yaacsanahay sida ciyaaladeyda darbiyada joogaan oo xabsiyada ugu jiraan maamadan waa loo dadaalayaa insha allah waana kasoo baxaysaa inta badan ciyaalkeedana way helaysaa intii kuley ما شاء الله ما شاء الله meeqa benti adeer adeer waxaan nahay lixaan nahay hadda afaran haya إن شاء الله صبرا دقاقة إلهي استغيرا صلاة كذا عروض صلاة بر أدونا صلاة حجاب كذا حجاب كذا بر كإلالي سرير قبل ونشأ كل عظيم قبيو يا مسلم وحياة وعدسيدين تلفون يوضع وكشعل هاي ناس بنسى كوي يعني مش أنا حوحة وجهي كقرن ما قلت wuxuu la hadlayaa gabadhii maama safiya dhashay oo ilmaha 4 ilmood lagu soo wareejiyay 4 ilmood baa ilmihii lagu soo wareejiyay gabadhaas oo leeyahay macnaha sidii walaasha ayaan daraagada iyo balaayada lagu siinin marka waxay tiri wejigayga xuux baa ku qoran bay tiri aniga wejigayga naag lagu soo degdegi kara maahay tiri maasha allah ilaahu korkaa yeel maamada gabadha caawinaysa weeyaan waxa weeyaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin cunugaada mid hadduu xumaado midka kaleeto ayaa hagaagaya oo ilaahay ku hagaajinaya oo kula garabgalaya oo dhinacaada istaagaya garabkaada istaagaya soo waxaa garata maa inkastoo kii xumaadana adigoo aad dhasho dee meel kaaga haraya ama aad kaga go-aysid aysan jirinin haddana waxa weeyaan caruurta ilaahay isku mid kama dhiginin oo waad ujeedaa tii ay dhashay ayaa maasha allah u duuban oo haysa ciyaalkii oo hooyadeeda jecel oo garab taagan marka soomaaliya hala iscaawiyo waa tanaa
السلام عليكم walaalayaalow aniga hadda lifekan soo galayaa ilaa khayran isiiyo garab isiiya iyo gurmada ani walaashiin baan ahay war la wadwado waxba ma taraayo marka السلام عليكم walaalayaalow aniga hadda marka maamadu waa ujeedaan ma rabo maamada hadalkeeda inaan kusii dhaaraado ma doonay maamada hadalkeeda inaan kusii dhaaraado waaba iska qalbi xumo haddana life ayba soo gelaysaa hadday xabsiga ku noqonaysaa soo waxaa garata maaha because gabadhii damiinada ka qaaday ayaa tiri anigu damiin kama noqonayo sababta niman ay sabood gareyso ama ay gabadhaasi taageersan tahay ayay mar wax ka sheegtay niman gabadhaasi taageersan tahay ayay mar wax ka sheegtay maamadan 30 sano iyo 40 sano weli laguma xukumin oo weli waxa weeye xukunka ma dhicin pending waayo waa sugaysaa ilaahayna inaga soo fasaxo ha kasoo daayay wuxuu noqonayo rabbul caalamiin walaalayaalow oo ha loo gurmado walaalayaalow ha la caawiyo kii wadanka jooga kii dabadda jooga maamadan waa maamo Soomaaliyeed oo 12 cunug leh ha la caawiyo ha loo istaago ha loo aruuriyo lacagaha waxa weeyaan wiilal baa aruurinaya daabaca sir ka mid yahay lacagta akoonka gabadheeda I think inay ku dhaceyso gabadha oo haysa iyo dad kaleetana waa ku dhaceysa oo aruurinayo lacagta uu istaagay marka waxa weeyaan waa loo gurmaday waana loo gurmanayaa marka insha Allah qof walba ha ka qaato qayb ha ka qaato maamada la wada caawiyo la qabiil arintu qabiil ma ahan nimanka ay wanis wax ka sheegtay waa ilmaadeeradeeda waa walaalaheeda waxa weeyaan waa la dhasheen waa dadkeedii waa dad saas oo waxa weeyaan aan waxba kala ahayn oo isku family maalin kastaan wax sheegnaa maalin kastaan waxayna maalin kastaan wax walba niraahna hadiina loo qabto ka waran yaa magafa waayla maalin kastaan gafnaa oo dhahnaa kan dadka noogu xigaan caynaa sida iyadaba kan dadka ugu xiga I don't know maybe ay wuxu tiri oon gabadhii soo damiinatay aysan ka helin oo aysan jeclaanin dumarku waa dhib badan yihiin dumarku haddaan anagu dumar nahay waan dhib badan nahay waan mucjisaan nahay yaa shartayada ummadda Allah ka qabto wallaahi billah waxa maamadan hadda qasaasta galiyay oo dhibkaas galiyay waa wanis waana dumar hadal TikTok ku jiray TikTok mucjisaata wallaahi wax TikTok ku jiray oo la soo qofay waa maamadan hadda xabsiga waxay ugu noqotay wanis السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأكو دير هذا أصحاب تملك جوجتين please subscribe like share وقد دالا لأن محل هذا فيديو غانيتو رمضان هلا عاوية like the share and subscribe هركم إلى هذا لكن أنا وقد البنك إلى هذا فلن هلا عاوية رمضان thank you very much guys ملك جوجتين hopefully unless عاوية هديان صومالي النهاية we gotta help each other